barnaamijka milicsi waa barnaamij aan ugu talagalnay in aynu diiradda ku saarno wax soo saarka aqooneed ee qayb ka mid ah culimada, mufakiriinta iyo falaasifada caalamka soo martay, iyo sidoo kale aragtiyahoodii ku aadanaa nolosha, arrimaha bulshada, siyaasadda, fiqiga iyo hadba joogtada jirta. بسم الله الرحمن الرحيم. أدبا كوسو دوينيا أستاذي إبراهيم أو حسن وابري وكون فرح سنة إن مر لبعض نقل قيب قاعدنا يسو برنامج كميليعسي كالكيسي لبعض كالكي هوراء وحين كوسو قاعدنا عبد الكريم البكار شرف وين بيدرونتي نقل قيب كشي إنه كشي إنه مفكر كاويني عبد الكريم البكار تربيتي وحكيلي قراءة وحكيلي ومنهجك وحسياسة مواقف كقاطي يسيقود بمشروع عيسى عين كواب لابليني sanad kadib waxaynu isu soo qabanay inagoo labada cariye kala fog kala joognay inaynu ka sheekaysano aadna taqaana u guda galno mashruuca shakhsiyadda sooyaalka iyo sidoo kale waxa ku xeeran nololeed ninka la yiraahdo Malcolm X Allahu naxariisto mufakirka weyn mufakir Afriqiya oo faylasuufa oo runtii sooyaalkiisa duruus fara badan ku laaban yihiin laga bilaabo dhalashadiisii 1925 ilaa markii uu godgeliyay maalmo sidan oo kala oo inuu hadda duubayna barnaamijka February dhowr iyo 20keedii oo kale inuu isaguna ilaahay oofsaday oo la dilay 1926 uu badan yahay Malcolm X wuxuu ka hadlayay xuquuqda insaanka wuxuu ahaa daaciye muslim oo soo islaamay waliba far fiican ku yeeshay sixista mabaadi badan oo islaamku lahaa gaar ahaan xarakadii al-xaraka al-islaamiya fi Amerika wuxuu ahaa nin runtii sidoo kale majara fiican qaaday oo dhanka xoreynta iyo mataqaana iska ridka qofka cadaanka ay u haystaan in madowga iyo qofka madowga uu ka hooseeyo oo dabcan taasi ay saansatayba naftiisi marka koobaad waxaan ka bilaabi doonaa ustaadi Ibrahim inaynu isla eegno sooyaalkii Malcolm X inaad noo dul martid wixii aanu mataqaana su'aaleenu ka haynay iyo waanu kula wadaagi doonaa insha Allah taala marka bismillaahir rahmaanir rahiim sooyaalkiisii ku soo dhaw ustaadi bismillaah aad u mahadsantiin meegaag iyo Astaan TV waa ku faraxsanahay mar kale inaan chance u helo inaad kala qayb qaato barnaamijka milicsi oo runtii barnaamij aad u qurux badan aad u qiimo badan waxa kale oo si gaar ah runtii ugu faraxsanahay shakhsiga aan maanta ka hadlayno Malcolm X shakhsi runtii cajiib ah qarnigii 20aad loo oran karo wuxuu ahaa hogaamiyaashii ugu saameynta badnaa guud ahaan dunida gaar ahaan dalka Mareykan ilaa maanta joognana arrinkiisu waa qoyahay waxna waa laga qoraa waxna waa laga yeedhaa dacwadiisna ma dhamaan dilkiisii ku saabsanaa oo imika kula hadlay bishii February 2023 waxa qoyskiisu maxkamad kula jiraan booliska iyo sirdoonka New York oo lagu eedeynaya cadeymo cusub oo la helay oo dilkiisa la xiriira marka shakhsiga runtii ilaa maanta arrinkiisu qoyahay wax laga duubayo wax laga qorayo ilaahay nagu asturo aad baan ugu faraxsanahay inaan idin kala qayb qaato barnaamijka Malcolm X ama Malcolm Little waa magaciisii yaraantii taariikhdiisa haddaan isku dayno waxoogaa si kooban wuxuu dhashay 1925 abi waxaa la oran jiray Early Little طبعا hooyadii aabihii baa dad wax bartay bay ahaayeen oo aqoon leh aabihii wuxuu ahaa nin kaniisadna ka tirsan wadaad kaniisadeed ah isla markaana activist ah oo wuxuu taageero u ahaa ururkii la oran jiray UNIA ama United Negro Improvement Association ee uu aasaasay ama hogaamiyaha ka ahaa Marcus Garvey oo ahaa dadkii markii dambana Malcolm X laftiisu
oo taariikhdooda wax ka akhriyi doono waqtigoodana runtii aad iskugu soo dhawaadeen. Marka wuxuu la dhashay 10 walaalaa isagoo 11 ku ahaa ayuu la dhashay. Waxaa uu markii uu isagoo uurka ku jiraba uu hanjabaad kala kulmeen qoyskiisu cadaanka xad jirka ah, iyadoo loo sheegay in aabihii la dili doono magaaladan ay ka guuraan maadaama uu yahay nin runtii ku adag dadka cadaanka ah oo dadka madow xuquuqdooda u dooda ninkaana iyo ururkaana ka tirsanaa. aabihii waa yaraa diiday marka hore, wuxuu yidhi ilaa uu ilmaha uur ku jira dhalanayo oo Malcolm ahaa markaas ma guurana. marka uu Malcolm dhashay ayay ka guureen magaaladii. dabcan hanjabaadahaas waa ku socdeen ilaa markii dambe gacantooda ku baxay oo ay dileen, walow ay ku eedeeyeen inuu isdilay oo waddo loo dhigay, dabeetana halka meydkiisa laga soo qaaday. dadka cadaanka xilligaas aabihii kaliya gacantooda kuma bixin, sidoo kale adeeradii badankoodu hal mid mooyaane waxaa dilay oo ay ku dhinteen gacantaas cadaanka. mid ka midana waaba la dildilay maxkamad la-aan dadka hortooda. Malcolm markii aabihii la dilay dhaqaale xumo daran baa jirta xilliga economic depression-kii Mareykan baa jiray, dagaaladii koobaad ee adduunka iyo xilligii dhaqaale darrada aad ku badan jirtay bay ahayd. dhaqaale runtii dadku xaaladdu aad ka u adkeyd xagga dhaqaalaha. marka hooyadii way ku adkaatayna waxaanu caruura koriso, baahi badan baa jirtay ilaa markii dambena ay xanuunsatay iyada lafteedu oo dhakhtarka dhimarka la dhigay, maskaxaan 22 sano lagula tacaalayay oo halka ku geeriyootay. marka markii hooyadeedna xanuunsatay awoodina kar weyday, caruurtii oo yaryar dhammaantood waxaa loo qaybiyey qoysas ama foster homeska waxa loo yaqaano. Malcolm wuxuu kusoo beegmi doonaa markaa qoys iyo iskuul cadaan ayuu geli doonaa. iskuulkaas oo markaa dugsiga hoose dhexe uu ka dhigan doono. wuxuu ahaa nin yar caqli badan oo dadaal badan, galaaskiisa president madaxweyne uu noqonayaa, topku ka mid ahaa ardayda ugu sarsareysa. maalin ka mid ah ayaa macalinkiisii oo aad u jeclaa, runtii oo aad macalimiintii ugu jeclaa ka mid ah, ayaa su-aal weydiinaya ku odhanaya markaad weynaato maxaad doonaysaa mustaqbalka inaad noqoto. Malcolm Little wuxuu ka odhanayaa waxaan rabaa inaan lawyer noqdo, qareen amba garyaqaan. macalinkiisuna ismaba dhibayo, wuxuu ka odhanayaa riyadaasi suurtagal uma eega maadaamaad madow tahay, maad iska dooratay shaqo gacanta laga shaqeynayo sida nijaarnimo iyo wax lamid ah oo gacantaad ku wanaagsan. haddaad madow tihiin shaqooyinka caqliga u baahan kuma shaqey kartaan, isagoo sidaa u jeeda. Malcolm maalintaa wixii ka dambeeyey wuxuu go'aansaday inuu iskuul ka tago. shamcii ka dhex baxayay halkaas ayay kusoo afgo'een. dabeetna iskuulka waa ka tegey. iskuulkii marka tegayna dabcan waalidkiisa lama joogo. waxay noqonaysaa markaa inuu kusoo baxo dariiqyada, inuu barto balwadda, inuu barto xaditaanka, inuu barto shaqooyin kala duwan uu qabto, hadday tahay baabuur meedhis, baalash, maruu waxado, maruu daraagis barto, maruu daraagiska iyo mukhaadaraadka lafteeda uu ka ganacsado. markaa noloshaasu dhex galay ilaa markii dambe markaa laga xidhayo oo jeel ka gelayo. dabcan intaa uu iskuulka dhiganayay iyo intaa uu yaraa si gaar ah waxa uu la kulmayay cunsuriyadda dadka madow lagu hayo, magacyada loogu yeedhayo, ilaa uu heer u arko markaa in waxaan noloshiisa ay ka mid tahay. markii la xidhay 10 sano lagu xukumay, 7 sano u dhammaysan doonaa ama 6 sano iyo badh akhlaaqiyad wanaagsan uu la yimid darteed waxaa la soo dayn doonaa isagoo xukun ka dhammaysan. marka 1946 ama 46 1946kii ayaa la xidhay. inkastoo dhowr mara ka horeysaba jeel uu galay, laakiin markaa u dambeysay 10 sano lagu xukumay waa 1946kii horaanteedii. marka taariikhda kooban iyo caqabadihii uu faamiligiisa iyo qoyskiisu la soo kulmeen Malcolm, iyo tii shakhsi ahaan uu la soo kulmay, iyo riyadiisii soo afxidhantay, iyo siduu jeel ku soo galay si kooban dhinacaas weeyaan marka hore. ustaad aad baad ugu mahadsantahay sooyaalka runtii wada koobsaday shakhsiyadda Malcolm X in la fahmo samaysankeedii, sidoo kalena la fahmo islaamka intii ka hor iyo intii kadibba wixii uu galay iyo wixii uu gudayba. aad baan kaaga mahadnaqayaa runtii sooyaalka sida fiican ee creativity-ga iyo ibdaaca leh aad u soo gudbisay. waxaan doonayaa ustaad inaan siyaaqayno su-aal ah
waxa uu ku suntamay Malcolm X oo qof kastaana mataqaanaa ku fahmi og yahay sooyaalkiisa iyo shakhsiyadiisa inuu la dagaalamay isir sooca gaar ahaan madowga Mareykanka iyo sidii mataqaanaa loo isir soocay marka inagoo ka hadlayna taas haddana inaynu ku lamaanayno marka koowaad bal taariikhda adoonsiga ee madowga maray inaynu ka hadalno taas kadibna ku lifaaqno kacdoonka uu Malcolm X dhaliyay sidoo kale wixii mataqaanaa ka hor yimi caqabad iyo wixii natiijooyin ah ee uu ka keenay dabcan taariikhda dadka madow in laga warramo waa muhiim oo Malcolm si fiican wuxuu bad u fahmaysaa markaad fahantid dadka madow iyo taariikhdooda iyo maraaxiisha soo mareen iyo noloshaas iyo taariikhda madowga Mareykan iyo taariikhda Malcolm qasab waa waxay tahay la isla akhriyo la isla fahmo laakiin wax laga gayoonaya ma wax afar qarniyo badan soo jiray weeyaan laakiin waxaan ma oran karnaa guud ahaan hadii taariikhda madow ee Mareykan aan saddex qaybood u qaybino iyo qaybta uu Malcolm kaga soo hagaagay iyo doorka uu ku leeyahay taariikhdaas qaybta ugu horeysa waa xilligii dadka madow Afrika laga soo qafaashay ee qasab lagu keenay Mareykan ee tacadiyaadka aadka u tirada badan loo geystay ee laga tirtiray taariikhdoodii iyo waliba diimahoodii oo in badan oo kamid ah lagu sheegay inay muslimiin ahaayeen laga tirtiro waxay ku abtirsanayeen kulligood si aan runtii bini'aadanimo ahayn loola dhaqmo oo xayawaan oo kala oo lagu shaqaysto oo la adoonsado oo qof bini'aadan oo la adoonsaday meel ka hooseyso la gaarsiin lahaa ma jirto marxaladaas oo soo socotay 1619 baa la yiraahdaa markii ugu horeysay ee dad madow Mareykan la soo dejiyo la keeno 1619 ilaa laga soo gaarayay 1865 markii Abraham Lincoln saxiixii u dambeeyay ku dhacay muddo ilaa 63 ilaa 65 dadaal uu soo waday oo hamigiisu ugu weynaa ahaa in dadka adoomaha la xoreeyo oo 65 baa saxiixii u dambeeyay ku dhacay oo la xoreeyay marka marxaladaas halkaas ku soo afxirantay waa marxaladda hore marxalad kale oo ah wax loo yaqaano ama Malcolm laftiisu marka dambe ku tilmaami doono wax loo yaqaano the second class citizen amba muwaadinka darajada labaad dabcan waliba loo oran karo way ka sii hooseysaa oo waxa la yidhi adoomo ma tiidin laakiin wali alaankaas si casri ah ayaa loo adoonsanayo Malcolm laftiisu wuxuu ku tilmaamayaa inuu adoonsi casri ah dad la yiri isku mid bay nahay Mareykan baa tihiin waan wadaagnaa anagoo Mareykan de European Mareykan soo galay baan idinku African Mareykan tihiin waan u siman lagu leeyahay oo haddana wax xuquuq ah oo leeyihiin ay iska yartahay ma codeyn karaan lama codeyn karo qofka la dila ee madow de waxyawaan amba neef baqtiyo kale haddii qof dilo oo qofka cadaan iyo qofka madow isku dambi galaan isku si looma xukumayo bal iska daayay 50% ku dhawaad waxa lagu qiyaasaa ninka cad markuu la soo dego ama la soo jaaro nin madow way ka guurayeen gurigaas amba aagaas reerka madow ay soo degeen marka sidaas ayay ahaayeen marxaladaas waxay jiri doontaa soo socon doontaa ilaa iyo laga soo gaarayo markaa kacdoonadii ay bilowday islaantii Rosa Parks iyo de Malcolm iyo Martin Luther King xilligiisa amalka oo 10 sano ka bilaabay 1955 ilaa 1965 ilaa marxaladda laga soo gaarayo oo marxaladda labaad ee bilaabanaysa oo markii islaanta Rosa ay diiday kursigaas inay ka kacdo ee dibadda lagu yiri kursigan ninka cadaanka ba fadhiistay qof madow lama ogola ee ay diiday dabcan dad badan waxa laga yaabaa inay sidaahdaan oo la isweydiiyo malaha ugu yaraan xilligaas waxa la oran karaa bas baabay wada kori karayeen oo waa kursi waxa la isku hayay laakiin nolosha kale faraha badan leh oo ka liidata baskaas ayaa ku gadaaneed oo ku hareereysnay dadka madow marka xilligaas ayuu Malcolm u soo baxay marka taariikhdaas qaybta labaad oo kacdoonadaas ay kamid ahaayeen iyo kacdoona dambe oo mar dambe la sameyn doono runtii the Bloody Sunday kii loo yaqaanay xadidiga ahayd oo markan u dambeysay 65 xataa xuquuqihii codeynta loo ogolaan doono dadka madow in codeyn kara loona codeyn karayo loo ogolaan doono oo marka la dili doono Malcolm X ilaa laga soo gaarayo waa marxaladda labaad baa loo oran karaa ee taariikhda madow ama marxaladda saddexaad waa wixii ka dambeeyay 65 ilaa iyo maanta oo iyadana loo oran karo isbedelo badan iyo wax badanna way ka soo baxeen
heer ay madaxweyne uu noqdo qof madow. laakiin weli alaanka dee kacdoonadii aan hadda u taagnayn uun ayaa jiraya Black Lives Matter ayaa socday oo weli alaanka dadka madow wax badan ayay tabanayaan oo lama gaadhin halkii ay doonayeen ama sinaashii rasmiga ah. laakiin wixii second class citizenka la odhanayay amba adoonsiga casriga ahaa iyadana waxaa la odhan karaa way dhammaatay. waxaa la odhan karaa un runtii wax badan ayay kasoo gudbeen marxaladda. marka taariikhda guud ee madow runtii waa taas. dad badan baa ku suntan taariikhda madowga oo maaha Malcolm oo keliya. dadku akhriyay wax ka bartay baa ka mid ahaa. nin la odhan jiray baa ka mid ahaa markii dambena Gaana degay oo la odhan jiray W.E.B. Du Bois la odhan jiray oo ahaa nin filosofar mufakar ah qoraallo badan sameeyey PhD diyaariyey oo runtii aad wax uga qori jiray waxna ka odhan jiray ururo sameeyey la odhan jiray NAACP ururkii la odhan jiray ka mid ahaa. marka dadkaasaa ka mid ahaa iyo Marcus Garvey ninkii aan soo sheegnay iyo dad badan oo kale. laakiin waxaa la odhan karaa hogaamiyaashaas uu ka mid ahaa kuwoodii ugu caansanaa amba ugu saameynta badnaa xilligaas 10 sano ee kacdoonka ama qaybta labaad kusoo beegmay. haddii aan kusoo noqono uu jeelka galay wuxuu guud ahaan ku jiray dabcan guud ahaan jeelka wuxuu ku jiraa 6 sano iyo bar ilaa 7 sano aan odhan karnaa 1946 kiiba ayuu galay 1952giina waa soo baxay 1952 waxaa jeelka ugu yimid markuu sanad 2 sano ku jirayba walaalkii mid ka mid ah walaaladii oo soo gaarsiiyey war odhanaya in familigii iyo qoyskii uu la dhashay walaalaha la ahaa dhammaantood ay islaameen kuna biireen oo ka mid noqdeen urur la yidhaahdo Nation of Islam oo uu hogaamiye ka yeelin la yidhaahdo Elijah Muhammad. Malcolm oo adigana waxaan rabnaa inaad nagula soo biirtid oo aad islaamtid. ugu horeyna waxaa laga rabaa inaad horta iska daysid sigaarka cabidiisa oo markaa jeelka uu ku dhex cabi karayay iyo weliba cunitaanka hilibka doofaarka labadaba inaad ka fogaatid. nimanka cadaankaana inaad ogaatid inayna bini aadan ahayn ee ay yihiin shar ama shaydaan. Malcolm waa yaabaya ma dhammaantood mise in ka mid ah may dhammaantood. diintani waa diin dadka madow loo soo saaray. dabcan Nation of Islam taariikhdeeda lafteeda iyo iyaga ayay tahay waxoogaa in laga fahmo intaynan halkaa gelin Malcolm iyo siduu u qaatay iyo sidee u bedeshay noloshiisa. waayo waxaa la yidhaahdaa Malcolm na lama fahmayo haddaan Nation of Islam la fahmin. Nation of Islamna lagama warrami karo haddaan Malcolm laga warramin. Nation of Islam waxaa sameeyey oo heerkaa gaadhsiiyey waa Malcolm. Malcolm laftiisana waxaa saameeyey oo sabab ilaahay uga dhigay waa Nation of Islam. markaa Nation of Islam haddaan wax yar dul istaagno waa urur la aasaasay baa la yidhaha 1930 oo nin Walis Fard Muhammad la yidhaahdo ayaa wuxuu baray niman uu ka mid ahaa Elijah Muhammad oo hogaamiyahan dambe ah in diin ay jirto dadka madow loo soo saaray oo diintaasi ay tahay diinta islaamka. dadka cadna ay yihiin shar. dabcan wuxuu ku sheegi doonaa Elijah Muhammad nin ilaahoo kale inuu yahay ilaah bini aadan iska dhigay. marna nebi buu ku sheegayay qolo walba waxay fahmayaan buu ugu sheegayay. kiristaankana ciisoo kale muslimiintana nebi marna ilaah baabuu ahaaba bini aadan iska dhigayo markii dambana ku noqday asalkiisii ayuu ku tilmaamay. markaa waa diin ay qaateen amba ururkan ay qaateen waa wax khuraafaad badan iyo shirki badan runtii uu ku jiray oo maha islaam saxa walow qiyam badan oo islaamka ah ay ku dhaqmayeen oo wax badan noloshooda ka bedeshay. markaa ninkaasi waxa uu baray ee uu ku hogaamiyey waxaa ka mid ah in muddo 6,000 sano ka hora nin saynisyahan oo madow oo Yacob la odhanayay uu sameeyey wax isku dardaray. saynisyahan buu ahaa dabeetana uu yidhi waxaan sameynayaa jinsi kale oo cadaan ah oo shaydaan ah oo dunida awoodeeda loo yara dhiibo muddo 6,000 sano ah. saasaa lagu sameeyey cadaankan. xilligiina waxay ku eegeed awoodda lagala noqonayay 1914 oo guud ahaan qarniga 20aad ah. markaa waa xilligii aynu soo dhacsanayna awoodeenii amba dadka cadaankaana dib looga xoreynayay Mareykan iyo dunida. sidaasuu teachingkii iyo cilmigii iyo diintii uu baray ay ahayd.
marka markii dambe ninkaas 4 sano kaliya la joogo wax barayay uu disappear garoobo oo qarsoomay baa la yiraahdaa sida sheegaan dabeetana Elijah Bull nin la oran jiray oo markii dambe Elijah Muhammad uu bixiyay ayaa hoggaanka qabtay ninkaas markaa dadkii dib wax u baray oo ururiyay oo ururkan hirgeliyay ilaa uu markaa ku guuleystay in badan ka mid ah inay sigaarka iyo balwada iyo khamriga iyo waxaas oo joojiyaan dhanka family-gana waliba xooga saaray iyo qoysasku inay dhismaan dabeetana uu sameeyay ururkaas fariintu markaas halkaas uga timid family-ga Malcolm X dhamaantood waa ku wada biireen jeelka ayay ku soo gaadheen Malcolm markii arrinkii lagu wargeliyay wuxuu oranayaa sidoo buugiisa uu ku xusayo in aan galay fikirkii noloshayda ugu dheeraa waqtigaas oo aan habeenoo dhan seexan waayay wax walaalkay maalinta ii sheegay oo iiga sheegay Nation of Islamna wax macna ii sameeyay ay noqdeen oo suurtagal ah wuxuu muddo xasuustay aabihii adeeradii hooyadii nolosha caruurnimadiisa soo maray dadka madow dhibka loo geysanayay qofka la dilay sida aan waxba la iskaga tirinaynin kan la kufsanayo kuwa la dhacayo waxiyo dhan iyo caruurnimadiisa iyo family-goodii qoyska wax walo kasta maskaxdiisa ma ku soo dhaceen ilaa wax walo kasta ay ula muuqdeen xaqiiq inay tahay sida loogu sheegay inay shar iyo shaydaan yihiin madowguna ay yihiin bini aadan marka awoodii laga marorsaday oo la adoonsaday oo tahay inay isxoreeyaan wuxuu isku arkay markaa doorkaas inuu ciyaaro kaalin weyn ka qaato waa halka isbedelkiisu ka bilaabanayo wuxuu go'aansaday markii inuu sigaarka joojiyo Malcolm in yar ka hor yaraantiisii la muddadaas jeelka uu ku jiray iyo ka hor wuxuu ahaa dilaawe waliba kuwa ugu daran ilaa kristaanka jeelka kula jira shaydaan ku tilmaami jireen oo diimaha iyo dadka haysta waa caayi jiro waa aflagaadeyn jiray wuxuu jeelka kula kulmi doonaa nin la yiraahdo ku magacaabay Bimbi oo markaa John Bembury la oran jiray oo markaa taariikhdiisa kana martaba la soo baro aad u caqli badnaa aad u akhris badnaa ninkaas Malcolm doodihiisu aad u la yaabi jiray caqligiisa iyo aqoontiisa markaa ninkaas markiiba isha geliyay Malcolm ku dhinin caqli badan baatay laakiin caqligaaga waa inaad use karayso isticmaashid sidaan uu isticmaala wax akhri wala markaas aan ku baraarugay horta in wax la akhriyo laakiin bilowgii akhriskiisu muu jihaysnayn muu u jeedaysnayn markaa hadda waxay noqonaysaa buugaagta inuu kalba wax iska soo qaato kalba wax iska akhriyo laakiin markii Nation of Islam iyo arrinkan iyo warkan uu yimid akhriskiisa uu jeedo yeeshay dadam buu yeeshay wixii uu akhrinayo toos buu garanaya hadda wuxuu istaagi doonaa toos buu garanaya wuxuu halgami doonaa toos buu garanaya waxay tahay inuu fahmo akhriyana toos bay ugu cadaadeen wax walba hortiisa u yimaadeen halkaas markaa uu isbedelkiisii iyo akhris iyo noloshii kale ay ka bilaaban doontaa Malcolm wuxuu bilaabi doonaa inuu akhriyo wax kasta uu heli karay oo falsafad iyo psychology iyo taariikh ah laakiin caqabad baa ka hor iman doonta bilowgiiba caqabadaasi waxay ahayd wuxuu isku dayi doonaa walaashii runtii uu muddana la soo noolaa saameynna noloshiisa ku lahayd ka weyneed ayuu waraaqa damcaya inuu qoro Elijah Muhammad laftiisa hogaamiyaha Nation of Islam inuu waraaqa u qoro damcaya marka walaashi waxay kula talanaysaa oranaysaa waxaad soo qoraysaa lama fahmayo oo xataa ingiriisigiisa aad u daciif ah lama fahmayo Elijah Muhammad nada waad arkaysaa waraaqa ku soo qorayaadna waxaad u qoraysaa marka luqadda iska dhisbay ku tiri ingiriisiga corresponding courses waxa la yiraahdo jeelasha lagu qaato ayuu qaatay marka taladii walaashi buu qaatay luqadda ingiriisigu bartay soo qoraalkiisa uu hagaajiyo markii uu course-ka qaatay kadib dictionary-ga ayuu damcay marka inuu bal ka barto kelmadaha ku adag iyo waxaan uu ka baaro dibta dictionary-ga baaridu waxay ku hagtay inuu dictionary-ga dhamaa inuu koona to koona uu xifdiyo oo gacantiisa ku qoro ilaa uu kelmado cajiib ah kala kulmay oo magaalooyin iyo taariikh iyo magacyo iyo wax aan weligii maqal oo kala kulmay wixii dhan wax xifdiyay gacantiisa ku qoray waa halka markaa luqadiisana iska bedelayso waraaqa halka ugu qoraya markaa Elijah Muhammadna waa halkaas uu isha marka hore ka soo gelinaya shakhsigan oo ka sii calaamadsanaya bilowgaba aad buu wax u akhriyay ilaa la gaarsiiyo akhriskiisu inuu gaadhay 15 saacadood maalin walba inuu akhriyo oo aanu habeenkii saxan sidoo isagu buugiisa ku sheegayo in habeenkii xataa leerkii iftiinka markuu damo leer yaro dhalaalayo albaabka hoostiisa ka soo gala ayuu erayada indhaha ku bineeninay soo erayada halka ugu akhriyo marka qolada gaadhku meesha marayana intuu carruur sarrinta iska dhigay inuu saxday way lama ogolaan qof soo jeeda xilliga saas wuxuu akhriyay
fursad kaloo helayo doodaa lagu dhex qaban jiray jeelka laga soo abaabulay Harvard University jaamacadahaas waaweyn iyo MIT laga soo abaabulay doodahaas uu ka qayb geli jiray dabeetana taasna waxa uu ku dhisay xirfadiisa fagaara ka hadal iyo midiisa doodeed marka akhriskiisii oo xadaaf oo aad wax u akhriyo ujeedadiisii oo kaleera iyo doodihii uu ka qayb geli jiray halkaas ayuu markaas uu Malcolm X kala yaqaan ku sameeyay magaca X wuxuu ku yimid inuu magacii Little uu totally go'aansaday inaanu qaadan sababtoo ah magacan wuxuu ka yimid ninkii ama dadkii cadaanka ah inuu adoonsan jiray asalkiisana garan mayno asalkayga Afrikana waa la iga tirtiray marka ma ku abtirsan doono magaca aan garanayn meeshuu ka yimid oo nin adoonsan jiray uu lahaa dabeetana X buu ku bedelanayaa Nation of Islam oo dhan fikradda waa la qaadanayaan iyaguna marka dambe X kaas wada qaadanayaan qofka magac muslima toos u qaatay mooyaan qofka kale Malcolm X halkaas uu ka yimid waa magac aan la garanayn oo Ilaaji Maxamed laftiisa markii dambe wuxuu ku oranayay Nation of Islam iyo xubnaha kale ilaa magac barakeysan oo samada inooga iman doono egastaas uu qaadan doono ama qofku magac muslima la siinayo sidaas ayuu markaa uu ku dhameystay 7 sano waxa la yiraahdaa warqadihii uu qoray mid kamid ah xataa wuxuu gaaray heer uu madaxweynaha Mareykan xilliga Truman inuu u qoray warqad uu kala hadlayo arrimihii Korea markaa socday Koreada dabeetana uu leeyahay inuu communist baan ahay dabeetana markaas baa la yiraahdaa ayaa failkiisa ugu horeeyay FBI daba la furay oo indhaha la galiyay oo la yiri ninkani nin sahlan ma halka ka soo socda marka dabcan iyadoo cabsi laga qabo oo laga taxadarayo haddana akhlaaqiyadkii dadaalka uu muujiyay darteed waxay noqotay 10 sano in laga soo khafiifiyo oo 1952 uu jeelka ka soo baxo markiiba wuxuu toos ugu tagay hogaamiyihii Nation of Islam markiiba waxa loo dhibay masaajid kamid ah masaajidadii muddo yar kadibna wuxuu noqdaa fahayeenka rasmiga ah ee Nation of Islam ilaa uu noqday dabcan ninka koobaad ee ugu awoodda badan leh walow uu hogaamiyaha rasmiga Ilaaji Maxamed yahay qofka ugu awoodda badan leh inuu isaga noqdo waxa la yiraahdaa xilliga uu ku soo biiray 300 ilaa 500 xubnood bay haayeen memberska ku jiray muddo 10 sano oo 1963 waxa uu gaarsiiyay sabab Ilaahay uga dhigay gacantiisa inuu soo geliyo Nation of Islam 30,000 ilaa 40,000 oo xubnood oo dadku u soo galaan koox meel kastoo ka hadlayna ilyartu isqabato dad caana dad hantiilayaal dad magac leh oo kamid ah Maxamed Cali oo markaas ahaa fadhiyaankii weynaa isaguna muslimay ayaa soo galay dadweyne noqotay in uu mashquul ka dhigo dabcan sirdoonki Mareykan oo failkiisa iyo taleefankiisa iyo dhageysigiisa uu noqdo mid joogto ah har iyo habeen sida isha loogu hayo wuxuu ku hadlayo iyo meeshuu marayo cid la kulmayo sidaan hore soo sheegnay Nation of Islam isaga wax ka dhigay isagana waxa sabab u ahaa Nation of Islam islaamkiisa uu qaatay ee noloshiisa bedelay walow khuraafaad iyo shirki badan ku jireen oo aanu xataa cibaado sax aanu cibaadeysanaynin oo wax badan shirkiga uu aaminsanaa laakiin haddana isaga waxa ugu weyn ee u muuqday waxay ahaydun in wax walba macna u sameeyeen oo aana khuraafkaas aanu u qaadan shahwad darteed iyo iigigiisa iyo qabkiisa darteed ee qadiyad darteed uu qaatay maalin allaali maalinta ogaaday waxa ka qaldan khuraafaadkana uu markiiba go'aan ka qaatay shakhsi noocaas oo ahaa wuxuu ogaaday oo uu sir ku helay in ninkii hogaamiyaha qaladaad waaweyn uu galay oo dumar kamida dadkii ku xeernaa qaar kamida caruur u dhalan sharci darraa taasna markii uu xaqiijiyay oo waliba Ilaaji Maxamed inankiisa uu dhalay uu xaqiijiyay oo ogaaday wuxuu go'aansaday markaa inuu kooxda dibadda uga baxo Nation of Islam dabcan hanti aad u tiro badan baa soo gali jirtay royal family buu noqday isaga iyo ubadkiisa iyo dadka ku xareysnaa Ilaaji Maxamed halka Malcolm oo gacantiisa iyo sababtiisa dadku ku soo galayaan maalintu dhimanayay ee la dilayay uu homeless ahaa aanu xataa guri lahayn oo hantidaas oo toos ugu xareyn jiray madaxda iyo Ilaaji Maxamed uu toos ugu geenay oo soo gacantiisa xataa xaaskiisu ay oranaysay war wax noo reeb wax carruurta u reeb oo laha ma lihin wuxuu sheegay buugiisa kaga waramaya shandadiisa yar uu qaato 3 shay oo kaliya inuu kaargareyn jiray oo daneyn jiray bas waa labada suud u xidhanayo iyo muraayadaas weyn oo qaadan jiray oo dabcan akhriskii indhihiisa wax yeelay faraha badnaa iyo saacadaas oo waqti kala soconayo intaas oo kaliya suudkiisa sandadiisa ku jirtay bas guriga ku jira xataa waxa siiyay Nation of Islam muu lahayn isagu maalinta isku dhacayna waa laga saaro banaanka laga saaray
maalintuu dhimanayay la dilay xataa qabrigiisii iyo wixii lagu aasiyay walaashii baa bixisay. safaradu baxayoo dhanna dadkaa casuumaya iyo dad kaloon baa ka bixinay, shilin muu hayn. taasina waxay caddaynaysaa kolley waxyaabaha ilaahay ku doortay ee ilaahay jidka saxdaa ku hanuuniyay bay ka mid tahay. muu haynin adduunyo iyo masaalix dhaafsanaya, wuxuu u taagayay mabdiciisu dhab buu ka ahaa. fursad kastuu taajir iyo maalqabeen uu ku noqdo wax walba ku urursado ayuu haysto gacantiisa ku jirtay. marka dabcan shakhsigaas ayuu ahaa Malcolm X. markii uu ka baxay Nation of Islam ee uu inankii uu dhalay Elijah Maxamedna oo arrintaa u xaqiijiyay aabihii qaladka uu sameeyey, nabinimadii uu sheeganayay, rasuulnimadii uu sheeganayay shaki ay ka muujiyeen inaan waxba ka jirin. xaalad buu galay dabcan depression ah oo kala guura. in yar kadibna warar mar horeba soo gaadhayay fariimo ku saabsan ma diinta saxda ah ila dad muslimiin ay imanayaan safar ku imanayay Mareykan oo warkiisa adduunka oo dhan baa laga hayay. maad soo ka wardoontay diinta saxda ee sunniga islaamka ah ayaa lagu lahaa. akhiran wuxuu go'aansanaya markaa inuu safro oo xajka aado, laakiin safaradiisa hore ma suurta gelayso. Masar iyo wadamada Afrika ku maraya oo ma suurta gelin. safarkiisa labaad ayuu xajka ku tagayaa. halkaas uu kula kulmaya markaa isbedel weyn oo la yaabayo, ilaa uu oranayo bal qofna muslim sheeganayo hogaamiyaha oo weliga xataa salaad sax tukan ka war oo garanaysa loo tukado. markaas ay ugu horeysay buu leeyahay khuraafaadkii la sheegay ee dadka cadaanka waa shaydaan, oo waxaan arkay dadkii cadaanka iyo kii madowaa iyo boqolaal kala wada midaba oo meel ku wada tukanaya, meel wada jeeda isku dhar xiran ayuu la kulmaya. wuxuu ogaanayaa markaas inaanay warkaas waxba ka jirin. fariimo soo diraya, waraaqo soo diraya oo leeyahay waxaan helay diintii saxda ahayd iyo arrinkii aan hore u aaminsanaa inay wax ka qaldanayeen oo aanu sax ahayn. wuu soo noqonayaa. wuxuu iclaamin doonaa markaa safaro kale degdeg u bixi doonaa oo Afrika ilaa 4-5 labun baa la sheegay, laakiin 4-5 ayaa runtii qoraaladii laga sameeyay ka leego laba bilood ayuu mararka qaar ku noqonay Afrika oo 4 ilaa 5 jeer ayuu baxay oo safray. wuxuu la kulmay oo safarkiisa kula kulmaya dabcan madax badan oo halgamayada xilliga jiraya oo kamid ahaayeen Bambali Nigeria, Nkrumah Ghana, Masar Jamal Abdel Nasser, ma ha kaliya madaxdii ashkhaastii xataa WEB laftiisa Du Bois iyo xaaskiisa iyaduna Graham Du Bois oo islaan iyaduna activist ahayd oo aad u cajiib ahayd oo talooyin badan siinayso xataa ku oranaysa Ghana dhalasho ayaan ka siinaya citizen iyadoo odageeduba markaa Ghana deganayno dhalasho laga siiyay. waa kaaga damaanad qaaday mar allaali markaad u baahato ku tiri. dadkaas oo dhan buu la kulmaya networking cajiib oo soo samaysanaya. marka hal marba waxa muddada yar ku 1963 uu isbedeladaas oo dhameeyay diintiisii saxda ahayd oo helay islaamkii saxda ahaa oo helay iyo networking-ka iyo Afrikada uu maqlayay iyo aaminsanaan jiray xilliyada qaar meel daanyar joogaan oo kayma ah sida buugiisa ku xusayo oo uu ogaaday xaqiiqadii markuu ogaaday inuu asalkiisa Afrika iyo dad jiray inuu ka yimid inuu la soo kulmay oo uu arkay dad caqli badan oo halgamaya oo gumaysis ka kicinaya inuu arkay. dabeetana uu ku soo ta'asuray ilaa organization kan dambu sameyn doona xataa markuu soo noqonayo laba organization markiiba asaasay labada urur waxay kala hayeen oo legacy iyo waxyaabihii uu ka tagayna waxyaabo uu ka tagay the Organization of Afro-American Unity oo ka keenaya markaa kii ay Nkrumah sameeyeen wadamada badan Afrikaankii ee Pan-Africanism-ka la socday ee ahaa Organization of African Unity markii dambe AU-da noqday. halkaas uu ka keenaya fikradda markaa wuxuu sameynaya the Organization of Afro-American Unity ayuu sameynaya oo meeshan uu ka qudbadeynaya markii la toogtay la dilayay bartu ka qudbadeynaya ahaa. iyo dabcan Muslim Moscow Inc oo iyaduna operation kale oo ugu talagalay masaajida midoobay urur ah oo muslimiinta ugu talagalay. marka wuxuu rabay dhanna dacwadii islaamkii saxda ah inuu ka faafiyo, dhanna inuu ogaaday in dadka madoow dhan ay halgan u wada taagayeen oo Afrika iyo arkay dadku inay kala duwanta xuquuqdan bini aadan. waa halku markaa ka keenayo human rights inuu isagu u dagaalamo. waxyaabuu kaga duwanaa nimanka kale saaxiibadii ahaa ee iyaguna u taagnay iyagu civil rights ba ku koobnaayeen amba xuquuqda rayidka, isagu laakiin xuquuqda bini aadanku taagna. wuxuu soo ogaaday arrinku inaanu rayid ahayn ee waxaan bini aadan yahay. hadaladiisa waxaa ka mid ah marka lagu ogolaaday inaad bini aadan tahay ayaa xaq rayidka aad helaysaa.
laakiin haddaan bini aadanba lagu aqoonsanaya sida markaa waa inaan adduunka kale arrinkayga gaadhsiinaa waa inaan afrikadayadii xidhiir la sameeya waa inaan aniguna gacan u fidiya markaan u baahdo ay baahdaan iyaguna gacan iisoo fidin karaan markaan u baahdo waa inaan brishkaa dhiso ayuu lahaa dabeetana markuu soo noqday ururada aasaasay wax badan baa la filanayay ustaadii waxaa muhiim runtii yana oo weydiina mudan qodobka ah turaafka ama legasiga ama hadhaaga muhiimka ee uu ka tegay Malcolm X inaan isweydiino hadday tahay qoraal hadday tahay mataqaanaa wax laga duubay hadday tahay xataa diraasaad iyo awraaq laga qorayba dabcan wuxuu ka tegay waxaa ka mid ah dhanka islaamkana raad wanaagsan buu ka tegay dhanka ururada iyo dhaqdhaqaaqyada madowga ilaa maanta jira boqolaalka magac yeeshana raad wanaagsan buu ka tegay oo matalan xagga islaamka oo kale haddaan u nimaadno marka laga tago shakhsiyaadkii uu isagu sabab u ahaa iyo dadkii faraha badnaa ee soo galay isaga dartii sabab ilaahay uga dhigay inay nation of islam soo galaan iyo shakhsiyaadkii dambe markii dambe uu islaamka saxda qaatay ka daba yimid islaamka saxda marka laga tago saameynta ugu weyn ee islaamka Mareykan ku leeyahay ama muslimiinta Mareykan waxa weeyaan in inankii uu dhalay Elijah Muhammad ee la oran jiray Walis Din Muhammad uu ka dhaxli doono nation of islam marka inankaasi uu ogaa aabihii Malcolm X isagu aad u jeclaa aad ugu saamoobay aad ugu qanacsanaa fikradiisa laakiin marna uu ka bixi jiray nation of islam marna uu kusoo noqon jiray kale nin caqli badan buu ahaa oo qoyar socda wuxuuna isku qanciyo laga yaabaa inay isla garteen Malcolm laftiisa wuxuu isku qanciyay inuu ka tagin oo nation of islam dhex joogo way uu arkay aabihii inuu da'aha oo bari dhiman karayo laga yaabaa inuu meesha isagu dhaxli karayo tiibaanay dhacday isagaa dhaxlay hal marna wuxuu ku qanciyay markaa nation of islam in uu ku yiraahdo waxaan idin sheegayaa in islaamka saxda uu yahay sunniga islaamkaas inaanu aabahay nabina ahayn ninkii aabahay arrinkan u dhiibay ku wareejiyay aanu ilaahay ahayn inaana dadka cade shabaadiin ahayn inaan bini aadan wadanahay inaan islaamka saxda iyo inta yaray naga dhiman aynu sideena inagoo ah aynu qaadan doono waana la qaateen hal mar baanu ayuu markaa organisation kale ku dhawaaqay oo dhanka wada laxiyay sida u dhamaayeen marka shakhsigaasi saameynta weyn iyo dabcan iyo ajarkaasina ilaa qiyaamaha uu soconaya waa Walis Din Muhammad oo aynan Elijah Muhammad laakiin isaga laftiisu iyo ku taasuray oo aragtidiisa qaatay oo markii horena u sheegay in uu ku qanciyay qaladaadkii abi u marxaati furay Malcolm X marka Malcolm X ayaa isaga si saameeyo sabab u ahaa isaguna wuxuu sabab u ahaa marka intii kale marka saameynta ka weyn runtii oo ku lahaa la xilligaana waan ognahay muslimiinta Mareykan xataa Afrikaankan kale ee dibadda ka imanay muslimiinta kale ma jirin wixii shalay lixdii ka dambeeyay la ogolaaday inay European ba iman jiray iyo dad kale muslimiin ahayn laakiin in muslimiintu doorka ku yeeshaan oo helaan runtii saameyntaas weyn ku leeyahay dhaqdhaqaaqyada kala marka la leeyahay xagga dhaqdhaqaaqyada kala madowga iyo xuquuqda aadanaha iyo xuquuqda rayidka iyo dadka madowna wuxuu ku leeyahay saameynta pan africanism door buu ku leeyahay ta gudaha Mareykan door waaweyn buu ku leeyahay oo waxa dhaqdhaqaaq sameysmay black power iyo black pride iyo black nationalism iyo black panther party iyo waxa ururo wada dhaqdhaqaaq sameysmay kulligood waxa hayn isagii dadka ku taasirama ka waayo isagu wuxuu kaga duwanaa saaxiibadiisa kale isagu hadii jeer wuxuu u dagaalamayay waxa ahayd wax la yiraahdo separation in wuxuu leeyahay imaba ogolid oo marka horeba adoonsi casriga baan iskaga simanaa waxaan ay muwaadinka darajada labaad marka maxad dimuqraadiyadda munaafaqad buu yaqaanay waayo waxaana dilaad isku mid baa nabad dunida u sheegaysaa haddana hoosteeda gelinaysaa waxa la yaqaatay anigoo gobollo gaar ah qaata meel gaar ah degan dadkayga madow iyagu ismaamulaan ayaa la yaqaatay saas u taagna marka waa sababta dhaqdhaqaaqyada badankooda iyaguna si ay wada aaminsanayeen arrinta kale kaga duwanaa isagu waxay wan istifaacaya marka la dhaasad isku difaacaysan wuxuu oran jiray by any means necessary wax la hayso laha wax kasto ay suurtagal ah oo shaqeynay wakii markii u dambeysay amalkay saxiixanayeen runtii wax badan ay ku kala aragti duwanaayeen wax badan ay kamid isnaayeen oo iyagu aaminsanaa markaasi nabadgelyo oo bariyo oo qoyar socday wax looga saxeedo saxiixanayeen halkan ku jiraan mudaharaadku joogeen salma joogeen ilaa laba jeer bay dhacday dabcan kala duwan mar intii la dilay bay ahayd March bay ahayd marna way ka horeysay two civil rights ba ayaa 1964 kii marka ka hore oo Selma Alabama u taagnaa Malcolm X uu fariinta u dirayay
fariinta u dirayo MLK waxa weeyaan 1964kii waa the Civil Rights Act markii la saxaxay uu joogay Selma in Alabama uu lahaa halkan uma jooga inaan aragga kugu adkeeyo laakiin halka waxa uu joogaa inaan kuu fudaydiyo waayo buu leeyahay markay ogaadaan alternative-ka iyo khiyaarka kale aan haysano arrinka way socodsiin doonaan sidii baana u dhacday the Civil Rights Act of 1964 sidii baa lagu ansixiyey ka kalena waa the Voting Rights Act of 1965 oo isagana uun xilligii ama sanadkii la dilay Malcolm X isagana la saxiyey waa laba runtii go-aano waaweyn oo muddo suurta galeen ayaa xilligaas suurta galay waana halka taariikhda labaad ee taariikhda saddexaad ee Mareykanka madow ay ka bilaaban doonto wixii intaa ka dambeeyay runtii ay ka bixi doonaan wixii loo yaqaanay inay noqdaan muwaadinka darajada labaad oo dabcan dadku ay si dhaba u sinaadaan markay noqoto xagga sharciyada ilaa heer ay madaxweyne noqdaan qofka madow laakiin waxa weli lala sii tacaalaya waxa weeyaan systemka iyo cultureka samaysmay weeyaan ta ilaa maanta runtii the Black Lives Matter ay ugu dambeysay taagani waa systemka iyo cultureka samaysmay laakiin xagga sharciyada wax badan runtii way kaga duwan tahay heerkan saddexaad ee taariikhda madowga Mareykan marka saameyntaas iyo doorkaas runtii uu ku leeyahay ama legacy-ga uu ka tagay waxa kamid ah kalsoonida iyo kor u qaadista dadka madow dhiirigelintooda oo mar walba u taagnaayin dabcan dadka madow ay xataa madowgooda iyo muuqaalkooda nacaan oo kalsoonidooda kor u qaaday inay wax wada qabsadaan inay qurux badan yihiin inay sooda ku qancaan naftooda ku qancaan waa isaga laftiisa kula markuu yaraa sawiradiisa hore laga arkaya isagoo timihiisa gubay oo timihiisa raba inuu jilciyo marka xaaladaas ay ku noolaayeen dadka madow inay xataa nacaan shakhsiyadooda marka doorkaas uu ciyaaray marka saameynta runtii dadka madow inay isku kalsoonaadaan inay wax wada qabsadaan inay xaqooda dhacsan karaan inay xuquuqda bini'aadanka laga horeysiyo tan rayidka oo labadaba ay muhiim tahay dadkana ay markaa u baahanayeen in arrinkiisa adduunka cilaaqaadka lala sameeyo networkingka uu la sameeyay hogaamiyaasha kale adduunka Afrikada cilaaqaadku la sameeyay waxaasoo dhan waxa weeye wuxuu kaga duwanaa kaga aragti fogaa oo kaga aragti dheeraa bay kamid ahayd ragii kale markaa saaxiibadiiha جميل أستاذي وحق قف كستو دوني إنه تحرعه مالكوم إكس وكتحرعي كري حقاس ناديات بدو محسن تهي هديا إنه بالبنيان دهان لبس سؤالات كسوق بجبينه أستاذ إبراهيم أو من تهي حالة دي كده هارناي ديل كيسة وقتها أولي من يكون صعب قرية شيء لحين كي فبراير inaynu iyadana su'aal ka dhigno oo bal aynu isweydiino sidoo dhintay Malcolm X dabcan lagana sameeyay aflaam wathaa'iqi ama documentary xoogan oo mudan oo qofkii hadhow tixraac u heli karayaan oo sii daawan karaya Allah subhanahu wa ta'ala ha naxariiste Malcolm X amba Alxaaj Malik Al-Shabbaas oo magacii uu qaatay markii islaamka saxda helay qoyskiisa carruurtiisna ilaa maanta ku abtirsadaan waxaa la dilay saan hore u xusnay 1965kii isagoo markaa raba inuu kelmad u jeediyo ururka uu aasaasay ee Organization of Afro-American Unity oo ilaa hall Audubon Ballroom oo 400 qof markaa ay fadhiyaan kana mid yihiin xaaskiisa oo markaa 4 hablood oo yaryar u dhalayna ay la socdaan oo 4 iyo 2 markaa ururka ku jira mataanaha iyo dunida kaga tagay ayaa hortooda lagu dilay markii sidaa loogu yeedhay masraxaba السلام عليكم يري سلامة الإسلام dadka ku salaamay ayaa saddex nin hubaysan soo galeen oo ay rasaas ku fureen 22 xabadood ayay ku shaandheeyeen 22 February ayaa 22 xabadood lagu shaandheeyay laabtiisa iyo garbihiisa iyo meel walba ay kaga dhacday sidii baana oo muddo yar kadib oo ku nafbaxay Allah subhanahu wa ta'ala u naxariistay saddex nin baa la qabtay mid baa cadeeyay inuu ku jiro ninka laftiisu wuxuu sheegay labada kale total yani wax dambiye geysan laakiin saddexdiiba waa la xiray kiiskana degdeg ayaa loo xiray si aan markaa la iskuba sii weydiin yaa ka dambeeyay iyo xagee laga soo diray waana su-aasha ilaa maanta calaamatu su-aashu ay dul taagan tahay dabcan Malcolm wax badan ayuu dareensanaa marar badan la weydiiyay leeyahay maanad baqayna wuxuu sheegay inuu yahay I'm already dead man anu waa meed socdaanahay ayuu taagnaa
bal iska daaya maalmaha lafteeda interview uu bixinayo wuxuu sheegay yar ka hor in nation of islam uu ka tirsanaa laga abaabulaya la dilo. sirdoonku waxay ku wargeliyeen gaadhigiisa la qarxinayo oo ay maqleen codad ay usoo sheegeen 14 February isla wiigun ka hor markii la dilay gurigiisa dab la qabasiiyey oo gurigiisa dhan laga saaray gurigii markaa uu deganaayo u dambeeyay markaa war badan buu hayay martidii lafteeda maalinta imaanaysay baa la yidhaha howlka kale ma iman waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah xataa inaan dadka la baadhin maalinta boolisna aan lasoo dirin dadka ilaaliya marka wax badan ayaa runtii uu dareensanay ogaa loo digay laakiin shakhsi dhimasho ka baqaya mu ahayn in badan baa lagu yidhi maad yara nasan oo inta arrimahan iyo cadaawadan faraha badan la ay dhammaanayso safar maad geli meelaha maad iskaga yara maqnaan laakiin cadow badan ayuu yeeshay runtii oo xasad iyo arrimo badan ku yimid oo ururkii uu ka tirsanaa ka yimid marka ilaa hadda ciddii soo dirtay way jiraan in xubnahaas ay ka tirsanayeen nation of islam laakiin yaa soo abaabulay si haddii la ogaa oo dowladda lafteedu war ka haysay oo wada hadalkii iyo wax walba tallaabo kasta la socodsiinaysay maxaa ay u sheegi weyday ciddii ka dambeysay ama maxaa maalinta ammaankiisa loo sugi waayay haddii warkiisa la hayay waa taa in markii bilowgii xusneen leenahay ilaa maanta ayaa maxkamad la iskula jira arrintaa ku saabsan alla subxaana watacaala ha u naxariista maalintaas ayuu geeriyooday oo runtii shakhsi hogaamiye cadiim ah dunida weyday oo aada u da-yaraa 39 jir ahaa waxyaabaha aadka runtii xanuunka badan ee dhimashadiisa u lahayd baa ka mid ahayd in wax badan laga filanayay isbedeladii uu sanadka gudihiisa weliba ayaamihii u dambeeyey uu sameeyey wax badan la filanaya oo la isweydiinayay 5 sano keliya haddii uu sii joogi lahaa ood hore mucjisadiisa u taqaaneen Malcolm X maxaa laga filanayay aad iyo aad baad umahadsantay ustaadii allah u naxariisto almufakir Malcolm X maxay tahay duruusta markaynu eegno sooyaalkiisaas markaynu eegno loolanada xoogan ee xaqa ee uu galay markaynu eegno afkaartiisa runtii sida tolmoon isku bedelaysay markaynu eegno sooyaalka fiican uu la maray alxaraka islaamiya fi America iyo waxyaabihii badnaa ee mabaadi'da iyo ku saabsanaa afkaartooda ee uu saxay ee uu toosiyay inta markaynu eegno maxay tahay waxaad aad u soo oran karayso ustaad Ibrahim Waabarihan ficilnan hadda iyo faca kasii dambeeyaba uu ka faa'iidi karayaa waana u mudan tahay soo qaadashada iyo ka hadalka Malcolm X dabcan wax badan baa lagu xasuustaa oo uu ka duwanaa markaa saaxiibkii la eegayo Martin Luther King sidiisoo kale nasiib uma helin inuu Nobel Peace Prize qaato ama maalin dhan oo national day loo sameeyo oo dalku fasax yahay nasiib uma helin laakiin wax ka weyn buu helay runtii oo qulubta dadka ayuu ilaahay ku daabacay oo dhigay oo dadka jeclaaday meel walba loogu magac daray streetya loogu magac daray masaajidda loogu magac daray ganacsiga loogu magac daray ilaa maanta ayaa runtii arkiisa iyo waxa film iyo documentary laga sameeyay aan maleynayn buugiisa kaliya gacantiisa ku qoray isagu oo la kaashanayay ninkii Haley uu la kaashanay buugaas kaliya waxa la yiraahdaa qarniga 20 sida Times ay qortay magaasiinkaasi qarnigaas wuxuu kamid ah 10kii buug ugu iibsiga badnaa ugu saameynta badnaa qarniga 20 non fiction books oo ma autobiographies buug laga qoray non fiction books oo buugaag ugu saameynta badnaa kamid ah speechyadii iyo hadaladii uu jeedin jiray waxa lagu sheegay mid kamid ah kii bullet oo kale speechkaas oo kale kuwiisii ugu dambeeyay kamid ah inuu ahaa 10kii speech ee qarniga 20 ugu saameynta badnaa saameyn markii laga leeyahay waxa weeyaan muxuu saameeyay muxuu bedelay muxuu taabay muxuu sabab maxaa raadi ka dhashay midhihii ka dhashay hadalku jeediyay iyo qoraalku qoray ayaa laga hadlay marka runtii ilaahay wuxuu jeclay ilaa maanta wax laga qoro oo wax laga duubo dokumentariyadiisa iyo fiidiyoyinka muuqaaladiisa laga duubo iyo dadka uu saameeyay dadka ku dayday bal iska daayay dadka qaar wax la sheegay inay kitaabkiisa akhriyeen kaliya ilaahay sabab wareeg inay ku soo islaamaan waxa kamid ah nin sheekh oo Mareykan cadaan ah waliba cadaan oo la yiraahdo Umar Faruq buugiisa akhristay oo ilaahay sabab dhigana ku islaam imise kale oo la garanayna badan baa jira oo ka warramay taariikhdiisa kaliya in la akhriyo kaliya ayadoo ilaahay sabab dhigana ku islaamaan ama noloshooda inuu isbedesho sabab u noqonay marka taas weeyaan runtii wuxuu kaga duwanaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay qofka ilaahay jeclaado samada laga jeclaado malaa'igta jeclaata ilaahay fara dabeetana bini'aadamka oo dhan ayaa iyaguna jeclaada marka taas ilaahay subhanahu wa ta'ala suurta geliyay ballantaas ilaahay oo fiid wax badan baan ka baran karnaa runtii wax badan baan noloshiisa ka baran karnaa waxyaabaan ka baran karnaa waxa kamid ah isbedelka
isbedelka iyo muhiimaddu leeyahay. waxaa shakhsi u diyaara isbedelka, waxaa shakhsi aan mabaadi'da iyo masaalixda aan isku dooranaynin oo mabaadi u taagan isaga laftiisa odhanaya hadaladiisa iyo koodkiisa ay ka mid tahay. qofka aan wuxuu taagay aanu jirin wax wala kasta ayuu markaa u istaagaa ama lagu shaqaystaa. markaa inuu ahaa qof mabaadi leh oo inaga la materialistic mu ahayn, nin adduunyo isagoo guri la oo meel u saxda aan haysan oo hanti aan lahayn ayuu ka tegay. caruurtiisa reerkiisa wuxuu ka tegay ma jirin. kalsoonidii iyo geesinimadii bay ka baranayaan inaanu xaqa cidna uga habranaynin oo ahaa qof ku dhac leh, daacada, runshaag, wuxuu u taagay ka run, jahal leh, qof wax isbaray inuu ahaa, wax akhriyey, in aanu waqtigu muhiim ahayn. marar badan waxaa dhalinyarada laga badaa in badan niyo jabisay inuu u malayo waqti badan inuu u baahan yahay qofku inuu wax noqdo. laakiin halganka Malcolm X waa 15 sano, waa 1950 markii la soo daayay, 1960 baa la dilay oo shahiiday biidnillah, waa 9 sano cimrigiisu. laakiin intuu halgamay waa 15 sano kaliya, intuu halgamay waa 15. marka inaan waqtigu muhiim ahayn, inuu wax ku bartay, wax ku akhriyay muddo yar 2-3 sano ahayd, inuu waqtigiisa sidoo ka faa'iideysanay. marka waxaan wax ka baran karana waxa kamid ah marka mar hadduu qofku inuu qofku wax u istaago oo ujeedo nololeed leeyahay, ilaahayna subxaanahu watacaala markuu arko qofka sincerity-giisa iyo daacadnimadiisa iyo rungashigiisa, ilaahay waa ku hagaya oo ku hanuuninaya markay kaa dhab tahay adiga oo aanad iigagaaga iyo hawadaada iyo shahwaadkaaga iyo adduunyada iyo masaalixda iyo kolba meesha adduunyada iyo meesha wax ka qoyan yihiin aanad adigu raacaynin. alla subxaanahu watacaala marka dambe ku hanuuninaya sida uu isagaba u hanuuniyey ee uu markaa khaatumada ugu hagaajiyey ee noloshiisa ayaamihii u dambeeyey uu xajka tegey, uu diintii saxda ahayd soo qaatay, islaamkii saxda ah helay, kadibna uu saa ku geeriyooday, dabeetana ilaa maanta uu saameyntaa u leeyahay. markaa shakhsiga runtii ayuu ahaa Malcolm X. ugu maadnaqaya ustaadii, allah ku barakeeyo. runtii waa xog waafiya qof kasta oo Malcolm X si teelteele wax uga ogaa iyo qof si fiican wax uga ogaa, labadaba wax ku kordhinayso, wax ku biirinaysa. intaas kusoo gunaanidi doonaa ka hadalkii almufakir alfaylasuf Malcolm X. aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa ustaadii, nabad haw. barnaamijka Milicsi waa barnaamij aan ugu talagalnay in aynu diiradda ku saarno wax soo saarka aqooneed ee qayb ka mid ah culimada, mufakiriinta iyo falaasifada caalamkan soo martay, iyo sidoo kale aragtiyahoodii ku aadanaa nolosha, arrimaha bulshada, siyaasadda, fiqiga iyo hadba joogtada jirta. ka faa'iidaysa macmil qiimo dhimista ballaadhan ee lagu sameeyey bisha barakaysan ee Ramadaan. ku iibso rasiifarka astaan $19 oo kaliya.